ururka iskaashiga islaamka iyo dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta magaalada Kismaayo ay xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland waxay deeq raashin ay ugu qaybiyeen dadka danta yar iyo dad barakacayaal ah oo ku sugan gudaha magaaladaasi. Wariyahayaga Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo. dadkan deeqdan raashinka la gaarsiiyay waxay isku jiraan barakacayaal iyo sidoo kale kuwa dan yar oo ku dhaqan magaalada Kismaayo. ilaa 3,000 oo qoys ayaa raashinkan la gaarsiiyay. waxaana raashinkan uu ka imaaday dowladda Sacuudi Arabiya gaar ahaan xarunta gargaarka degdega ee Boqor Salmaan waxaana lagu wareejiyay dowlad goboleedka Jubbaland. xubno kamid ah dowlad goboleedka Jubbaland oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere, maamulka gobolka iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo ayaa goobjoog ahaa markii raashinkan la qaybinayay waxaana lagu qaybiyay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Kismaayo. gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajir ayaa sheegay in raashinkan loogu talagalay dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha ee ku dhaqan Kismaayo. sida u jeeda halkan waxaan ku qaybinaynaa saaka raashin ka kooban 7 nooc oo ay keentay dawladda saaxiibkana ee Sacuudiga King Salman boqorka Salman la yiraahdo hay'adiisa samafalka ayaa bixisay raashinkaas. ilaahay idankii waa uga mahad celinaynaa 4,000 oo qoys oo raashina oo intaas mid walba ka kooban yahay baa saaka lagu qaybinayaa magaalada. waxaan rajaynaynaa inay wax ka geysan karto runtii baahidii magaalada ka jirtay. xubno ka socday dowladda Sacuudiga iyo wakiiladii raashinkan qaybinayay ayaa sheegay in xaafadahani ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo guud ahaanba la gaarsiin doono raashinkan. وعددها 4000 سلة غذائية في إقليم جوبالاند في محافظة كسمايو. وهذه السلال مقدمة من المملكة العربية السعودية للأخوان والأشقاء والمتضررين من الفيضانات. ومحتوى السلة 90 كيلو وتحتوي في هذا الإقليم ممثلة بنائب الرئيس. أن هل كان كفرينا قيبنتا عنتك 4,000 oo qoys loo qaybinayo oo ay soo dhiibtay xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka degdega ah ayna OIC ama ururka iskaashiga islaamka oo ay isugu yimaadeen 57 dawladood oo ah caalamka islaamka isugu yimaadeen. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere ayaa mas'uuliyiinta iyo dowladda Sacuudiga u mahad celiyay wuxuuna sheegay dowlad goboleedka Jubbaland in si nidaam ah dadkan ay ku gaarsiisay raashinka asagoo sheegay in loo baahan yahay in dadka barakacayaasha ee ku dhaqan duleedka Kismaayo in la garab qabto. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo. halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho.